ciidanka beesha ciise waxay gacanta ku dhigeen gawaari oo tiro badan kuwaasoo ay sideen hub noocyadiisa kala duwan isla markaana ka yimid ee dowladda Soomaaliland waxaana loo siday hubka ciidamada Gadabuurse ee Madaniga ee dagaalada adag kula jira ciidamada beesha ciise waxay sheegeen inaysan nolol ay ku dhaafi doonin cid kastoo Gadabuursa oo nolosha ay ku qabtaan isla markaana waxay wacd ay ku mareen in nolosha ay ku cadaabi doonaan qof kastoo ay qabtaan waxay kaloo sheegeen in qoriga caaradiisa ay wax uga qaadan doonaan qof kasto ay qabtaan isla markaana aysan cafin doonin reerka ciise iyagoona wacd ay ku maray inaysan gebi ahaanba dhaafi doonin qof kasto sheegta reerka Gadabuurse iyagoo sheegay in magaca reer Gadabuurse uu noqon doono magac laga yaqiiqsiin doono isla markaana ugu dambeyntii ilaa heer la dhuunto qofkii sheegtana loo arki doono inuu wax ceeb inuu ku hadlay ayay wacd ku maray inay gaarsiin doonaan reerka ciise kadib markii ay sheegeen in loo geystay xasuuq ba'an isla markaana aan loo meeldayn kaas oo ku sheegeen in dadkoodii lagu laayay laguna xasuuqay war degdeg ah ee daawadayaal ciidamada beesha ciise ayaa gubay gawaari ay leeyihiin ciidanka beesha Samaroon kuwaas oo ay ahaayeen gawaari sida hub noocyadiisa kala duwan isla markaana uu ka yimid dhinaca dowladda Soomaaliland ayaa la sheegay in loo waday ciidamada beesha Gadabuurse Madaniga ee dagaalada adag ee kula jira ciidamada beesha ciise kuwaas oo la sheegay gacanta ay ku dhigeen ciidamada beesha ciise kadib markii la sheegay in ugaas Mustafa oo dhammaan ciidamada jabhadda ciise uu amar buuxo ku siiyay inay howlgalaan iyadoona uu sheegay in markaan dadkiisa loo tashtay isla markaana loo baahan yahay inay sameeyaan ka hortag degdeg ah isagoona ku amray in dhammaan reerkiisa meel kastoo ay joogaan ay galaan diyaar garow buuxa sidii looga hortagi lahaa weerar kasta oo ka yimaada ciidamada beesha Gadabuurse oo garab buuxa ka helaya dowladda Soomaaliland ayaa taageero buuxa siinaysa ciidamada beesha Gadabuurse kuwaas oo u balan qaaday inay taageeri doonto isla markaana ciidamada Madaniga ee Gadabuurse ay qarameyn doonto iyadoona sheegtay in mushaaraad ay u bilaabi doonto kaliya shuruudda ay hordhigeen waxay tahay inay la dagaalamaan ciidamada beesha ciise haddii uu dagaalka uu soo dhamaado ayna ka adkaadaan ciidamada beesha Gadabuurse ay xor noqon doonaan iyagoo deegaanadooda iyo beerahooda iska falanayaan ay mushaaraadkoodii qaadan doonaan isla markaana ay noqon doonaan ciidamo nabdoon iyo si lamid ah ciidamada deegaanka in loo bixin doono iyadoona ay noqon doonaan ciidamada difaaca qabiileedka isla markaana ammaanka deegaanada gacanta ku haya ayay ku sheegtay Soomaaliland inay noqon doonaan ciidamadan waa sidii ciidamadii dowladda Soomaaliya ay u taqiinay macwiisley isla markaana la hoosgeyn lahaa oo ay ahaayeen kuwa la hoosgeeyo xukuumadda federaalka Soomaaliya mushaaraadna ay qaataan sidii si lamid ahba ciidamada beesha Gadabuurse waxaa loo bixin doonaa ciidamada difaaca deegaanka kuwaas oo looga talagalay inay ka hortagaan weerar kasta iyo si lamid ah arbishaad kasta oo ay sameeyaan ciidanka beesha ciise waxay sheegeen inay ka bixin doonaan jawaabo adag gawaarida ee laga qabsaday oo ciidanka beesha ciise ay qabsadeen ilaa iyo tiro oo gawaariya oo kuwaas oo saarnaa hub noocyadiisa kala duwan isla markaana la sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda ciise ay wadada u galeen ugu dambeyntiina ay qafaasheen dadkii saarnaa ee gawaarida iyagoo dhinaca kalena qaniimeysay gawaaridii hubabkii saarnaa kuwaas oo lagu sheegay in loo siday Gadabuurse hubkan ayaa ka yimid dhinaca iyo Soomaaliland ee dowladeeda iyadoo dhinaca kalena lagu eedeynayo in Israa'iil ay soo dhiibteen hubkan si looga dagaalo reerka ciise dowladda Soomaaliya ay taageerayso dagaalka ayaa isku bedelay gacan ka hadal iyo si lamid ah reeraha Soomaaliland ciise iyo Gadabuurse in la kala taageero iyadoo tanina ay u arkaan dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya fursado kale isku baabi'iyaan dadka shacabka waayahay ciidamada Gadabuurse ayaa sheegay in hubkooda laga qabsaday ay jawaab degdeg ah ka bixin doonaan iyadoo daqiiqadahan imika ugu dambeysay ay ka baxeen mid ka mid ah deegaanada ee Soomaaliland ciidamada Gadabuurse ayaa la sheegay inay ku wajahayeen furimaha hore iyagoona isla markaana doonaya inay ka jawaab adag ay ka bixiyaan hubkii ay ka qafaalatay ciidamada beesha ciise kuwaas ay ka qafaasheen hub casri ah noocyadiisa kala duwan isla markaana ay ka qafaalatay reerka Gadabuurse Samaroon ayay wacd ku mareen inaysan marnaba cafin doonin cidii taabatay ee hubkooda iyagoona sheegay taasi ay saarin wax marnaba iyagoo ay aqbali karaan in hubkooda la taabto isla markaana la qafaasho waxay kaloo wacd ay ku mareen in haddii la soo deyn waayo hubka inay xoog ay ku soo furan doonaan laakiin dadka laga qafaashay haddii la soo deyn waayo waxay sheegeen in 100 qofood oo reerka ciise ay u maqan yihiin reerkaasi iyagoona ay sheegeen
inay u dili doonaan ilaa iyo tawaneeyo qofood isla markaana aysan u naxariisan doonin gebi ahaanba ayna ka nixi doonin dhibaatada iyo khasaaraha ay u geysan doonaan iyagoona sheegay inaysan wax la aqbali karo aysan ahayn gebi ahaanba waxa ay ku sameeyeen reerka ciisaha ay ku sameeyeen gadabuursaha laakiin reerka ciise waxay sheegeen inay aargudan doonaan iyaguna isla markaana kadib markii ay sheegeen xasuuq ba-an aan loo meel dayan loo geysay oo ay ku sheegeen in lagu xasuuqay caruurtoodii iyo haweenkoodii ayay ku sheegeen in loo geystay xasuuq ba-an kaasoo ay ku sheegeen iyaguna inaysan marnaba aqbali doonin gebi ahaanba isla markaana ay ka bixin doonaan jawaab degdega iyagoona ay sheegeen ay noqon doonto taasi wax laga falcelin doono oo beesha ciise aysan marnaba ka aamusi doonin furimaha hore inay isku xaadirin doonaan iyo si lamid ahba deegaanada beesha gadabuursa ay degto inay tegi doonaan isla markaana ay layn doonaan dhammaan wixii gadabuursa halkaasi ku arkaan iyagoona ay sheegeen in cid kastoo sheegata gadabuursa ay ka yaqyaqshiin doonto xitaa magac gadabuursa inay sheegtaan tanina waa fariimihii ugu muhiimsanaa oo ay direen beesha ciise isla markaana ay ku sheegeen in dhibaato ba-an oo adag ay la kulmi doonaan ee reerkan ay ka shalayn doonaan weligooda isla markaana ay xitaa ka xishoon doonaan in magacaasi gadabuursa ay sheegtaan waa heerka ay ku sheegeen ciise inay gaarsiin doonaan ee samaroon in magacaasi uu noqdo magac laga yaqyaqshiyo waayahay samaroon haddaba maxay doonaysaa samaroon waxay beesha ciise aan yiraahdee waxay doonaysaa in aargudato waa sida iyagu marar badan ay ka dhawaajiyeen baraha bulshada ay soo istaageen meel kasta ayay ku muujiyeen aargudashadooda iyagoona ay sheegeen xasuuqi loo geystay awgii in hore oo dagaal oo keliya uu ka dhaxeeyey laakiin markaan uu dagaal uu sii dhaafay ay sii mareyso aargoosi ay ku sheegeen xasuuq oo loo geystay dadkooda iyagoona ay ku sheegay in dagaalka laga reebo ay ahayd caruurta haweenka iyo waayelada laakiin waxay beesha samaroon ku eedeeyeen inay xasuuqday caruur haween iyo waayelo iyadoo aysan u meeldayin isla markaana aysan fiirin in iyagu laftirkooda ay leeyihiin caruurta ay laayeen caruur la mid ah haweenka iyo waayelada ay laayeen si lamid ahba waayelo iyo dumar la mid ah in iyagu laftirkooda ay u joogaan laakiin haweenka iyo caruurta iyo waayelada ay ahaayeen muqadas lama taabtaan ah waxay ku sheegeen in xadkaas iyagu ay tallaabsadeen wadadii iyagu ay u jeexeen oo keliya iyaguna inay qaadi doonaan ee beesha ciise isla markaana jawaabo adag oo kulul ay ka bixin doonaan wixii loogu geystay gudaha dalalka Soomaaliland deegaanadeeda iyagoona ay sheegeen taasi marnaba aysan aqbali doonin daansi kasta ugu yimaada beesha samaroon waxay kala wacd ay ku mareen in hubkaan ay soo furteen isla markaana ay ka soo furteen beesha samaroon gawaarida noocyadooda kala duwan gawaarida ayaa la sheegay xilliga la qafaalna inay marayaan mid ka mid ah wadooyinka deegaanada Soomaaliland oo furimaha hore duurka halkaasoo la sheegay in xitaa wadooyinkaas ay ahaayeen kuwo sir ah la ogeyn dhinaca kalena waxaa la sheegaa in ciidanka sirdoonka Soomaaliland ay ka shaqeynayeen inaan la ogaanay gawaaridaas hubka waxaa ka yimid dhinaca dowladda Soomaaliland isla markaana la doonayo in lagu taageero ciidamada beesha ciise aan yiraahdo ciidamada beesha gadabuursa kuwaasoo dagaal baan oo xoogan ee kula jirta dowladda federaalka aan yiraahdo kuwaas dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya si lamid ah gaar ahaan imika cidda halkaas isku hayaan ay tahay ciidamada beesha ciise ayaa la sheegay loogu talagalay in lagula dagaalamo laakiin dagaalo badan ay sameeyeen iyo xoog isdhaafsi jabhadda beesha ciise iyo sila ayaa iska kaaladay inay ogaadaan ugu dambeyntiina ay fashiliyaan qorshaha dowladda Soomaaliland iyo si lamid ah gadabuursa isla markaana lagu doonayay in hubkaas tirada badan oo ay qafaashteen in lagu xasuuqo reerka ciise iyagoona ay sheegeen intaasi aysan ahayn wax suuragal ah marnaba aysan aqbali doonin in hubka intaasi la tiradooda iyagu loo adeegsado beesha ciise waxay sheegteen in markaan ay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabooyin adag oo degdeg ah kuwaas ay u saamixi doono xitaa inay argusadaan iyo inay jawaabo adag ay ka bixiyaan waxay kale xuseen inaysan marnaba aysan ahayn wax aysan dhaafi doonin gawaarida ay qafaashteen kaliya ay yihiin hordhac laakiin ay qafaalan doonaan gawaari intaasi ka sii tiro badan iyo si lamid ah waxay kale sheegtay inay furan doonaan wax intaasi ka sii badan iyagoo wacd ay ku maray dhinaca kalena sida deegaanadoodii dabaasha oo kale loogu gubay in iyaguna ay gubi doonaan deegaanada ay degaan reerka samaroon isla markaana aysan ka daba hari doonin ilaa iyo ay kala adkaadaan mooye waxay kale xuseen xitaa in dagaalka reerka ciise uu gacantiisa u sarin doono oo iyagu ay ku guuleysan doonaan isla markaana hilfaha ay u laabi doonaan reerka samaroon iyagoona sheegay
inaysan marnaba aqbali doonin daansi kasta ugu yimaada dhinaca dowladda Somaliland iyo si la mid ahba ciidamada gadabuursaha.